Dhul bannaan iyo kaymo madow oo geedo dhaadheer ku yaalaan, waxaa ku noolayd naag la yiraahdo Dhegdheer. Magaceeda waxaa loo bixiyey sababo ah dhegaha dhaadheer ee dhinacyadeeda ka lalmaday, kuwaas oo ay dadka qaar ku sheegaan in ay ka maqasho codka carruurta meel fog oo aan qof kale maqli karin. Naagtaasi ma aysan ahayn qof caadi ah, ee waxay ahayd jinni naxariis la'aan ah oo carruurta uun quudan jirtay. Tuulooyin badan ayaa cabsideeda ku noola, carruurtii lagu korin jiray hadal keliya. Ha u bixin habeenkii bannaanka, haddii kale Dhegdheer ayaa ku qabsanaysa. Socdaalkii hooyada iyo carruurteeda. Habeen mugdi ah, dabaylo qabowna socdaan, waxaa jiray hooyo la yiraahdo Xaawo oo 4 carruur ah lahayd. Gurigeeda raashinkii wuu gabaabsi noqday, ninkeeduna safar dheer ayuu ku maqnaa. Xaawo waxay qasab ku noqotay in ay habeen dambe carruurteeda la soo qaadato si ay daaqsinka geedaha agtooda ugu raadiso miraha iyo xididda ay cunaan. Carruurtu way daalayeen, midkood yar ayaa ku yidhi: Hooyo, waan baqayaa, codad ayaan maqlaaya. Xaawo waxay ku adkaysay: Ha cabsanina, Ilaahay waana dhowrayaa. Laakiin meel aan fogayn, Dhegdheer waxay ahayd mid fadhiya geed dhaadheer hoostiisa. Dhegaha waaweyn ee madow waxay u kala fidayeen sidii maro dabayl qaaday, waxayna maqashay codka ilmaha yar. Indhaheeda guduudan ayaa iftiimay, caloosheeda madna waxa uu bilaabay in uu xanuun ku rido, iyadoo dareentay gaajo xooggan. La kulankii Dhegdheer. Markii Xaawo iyo carruurteedu gaareen dhul bannaan oo geedo ku hareeraysan yihiin, si lama filaan ah ayuu mugdigu u sii cuslaaday. Qiiq madow ayaa ka soo baxay kaynta dhexdeeda, waxaana ka dhex muuqday qaab naxdin leh. Waa Dhegdheer. Cod dheer oo gariiraya ayay ku tidhi: Xaawo, carruurtaas iga daa, maantana gaajadayda aniga ayaa lagu qancin doonaa. Carruurtu qaylo ayay la dhaceen, mid walbana dhabarka hooyadiis ayuu isku qariyey. Xaawo, iyadoo naxdin la gilgilaysa, waxay kor u qaaday gacmaheeda oo ducada akhrinaysa. Laakiin Dhegdheer ma aysan joogsan, si dhaqso ah ayay u soo dhaqaaqday, lugo dhaadheer oo culusna dhulka ayay ku dhuftay, iyadoo kor ka qaylinaysa sidii goray la waashay. Geesinimadii wiilka yar. Carruurta Xaawo waxaa ugu weynaa wiil 12 jir ah oo la odhan jiray Cumar. Inkasta oo uu cabsi ku jiro, haddana wuxuu go'aansaday in uu difaaco hooyadiis iyo walaalihiis. Qori yar oo u la mid ah ayuu dhulka ka qaaday, wuxuuna ku taagay Dhegdheer. Cumar wuxuu ku dhawaaqay: Adigu waxaad tahay shaydaan, Ilaahayna kuma jiro. Maanta adiga laguma guulaysan doono. Dhegdheer qosol dheer ayay la dhacday, codkeeduna wuxuu ka yeeray sidii dhagaxyo isburburinaya. Waxay ku tidhi: Wiil yar, geesinimadaadu waa macaan, laakiin dhiiggaagu waa macaan ka sii badan. Iyadoo weerar ku soo qaaday, ayuu Cumar ul yar kor u qaaday oo dhulka ku dhuftay. Dabayl xoog leh ayaa ka kacday, waxaana la sheegay in ulkaasi uu ahaa ul la sixray oo awowgiis hore uga tegay. Dabayluhu waxay ku duufteen Dhegdheer, iyadoo qaylinaysa oo ku khasbay in ay dib u gurato. Cawaaqibka Dhegdheer laga bilaabo maalintaas, Dhegdheer marna ma aysan joogsanin raadinta carruurta, laakiin tuulooyinkii waxay ka biyo diideen cabsi. Qof kasta ayaa ogaaday in haddii ay midnimo iyo geesinimo yeeshaan, Dhegdheer la iska celin karo. Laakiin ilaa maanta waxaa jira dad sheegaya in habeenkii marka dabayshu yeerto, codka Dhegdheer laga maqlo kaymaha madow, iyadoo ku dhawaaqaysa: Carruurtiina, carruurtiina. Weli waan idin raadinayaa. Gunaanad sheekada Dhegdheer. Sheekada Dhegdheer waxay dadka baraysaa in geesnimo iyo midnimo lagu difaaci karo xitaa cabsi weyn. Sidoo kale waxay xasuusinaysaa carruurta in ay dhegaystaan waalidkood oo aysan bixin habeenkii meelaha madow. Sheekadeen maankas ayay kusoo ekaatay. Fadlan janaalkeena subscribe saar, doonta kuu saarnay subscribe. Waa la ku baahsantahay hawshaada.